munaasabaddan ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha maxkamadda sare dastuuriga wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda xeer ilaaliyaha guud maayirka magaalada berbera gudoomiyaha jaamacadda culumta badda barasaabka gobolka saaxil iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Soomaaliland ayaa waxaa soo qabanqaabisay hay'adda la yiraahdo EU CAB oo wada shaqayn dhabal leh dowladda Soomaaliland hay'addan hore loo oran jiray EU CAB Nastar ayaa waxaa munaasabaddan ay ku shaacisay inay si toos ah ula shaqayn doonto dowladda Soomaaliland khudbada dhaadheer oo saraakiisha hay'addan ay ka jeedeen madashan kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare dastuuriga aadan xaaji cali isagoo ka warramayo wada shaqaynta hay'addan waxa uu yiri kan wuxuu ahaa shir caalamiya wuxuu daba socday shirkii hore ee ogeydeen in barigii lagu qabtay markabkii EU dalhayd ee Berbera yimi marka qoladan EU CAB ayaa halkan ku soo bandhigaysay waxa yimi madaxdii regionka waxaana laga wada hadlayay Soomaaliland ay musaacadooyinka siiyaan u sii ballaarin lahaayeen waxay aad u caawiyaan qaybaha xeebaha ciidanka coastal guardka iyo maarinka iyo kuliyadda fisheriga Berbera oo caawinayaan qaybtan criminal justice-ka maxkamadihii iyo booliiska iyo ciidamada xeebta wada shaqayn lahaayeen iyo investigation-ka iyo xeraalinta intaana way la shaqaynayaan marka wuxuu ahaa shir la isu yimi mar horena waatii dhowr jeer wadanka way ka shaqeeyaan laakiin dhowr jeer horena sanba loo kulmay markii hore waxa la oran jiray EU CAB Nastar marka magacii bay bedeleen mission-kooduna way bedeleen wax qabadkii Soomaaliland ka dhex sameynayaan oo ballaarinayaan waxaan rajaynaynaa marka si ay ballan qaadeen inay dib u furiyaan oo ay wax qaban Soomaaliland oo diyaar geesta kalena wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo gudoomiyaha jaamacadda culumta badda iyo abbaanduulaha ciidamada badda ayaa iyaguna soo dhaweeyay wada shaqaynta hay'adda EU CAB oo sheegay inay dadaal xoogan u sameyn doonto sidii horumar ay u sameyn lahayd Soomaaliland gaar ahaan marka laga hadlayo dhinaca xeerarka ciidamada badda garsoorka iyo cadaaladda maanta halkan waxaa shir loogu qabtay mashruuca ay maalgeliso ururka midowga Yurub amba EU ee la yiraahdo EU CAB oo inagala shaqeeya xagga nabadgelyada dhinaca badda burcad badeeda maxaa yiraahdaa xadidda kalluunka wasakhaynta tahriibta waxyaabahaas oo dhan kama mashruuc intii cusub maaha laakiin waa waji labaad weeye wajigan cusub waa waji labaad weeye waa mashruuc aad iyo aad runtii faa'iido u leh waxay la shaqayn doonaan haruna wala shaqayn jireen ciidankeena ilaaliya xeebaha maxkamadaheena waxay la shaqeeyaan oo kale wasaaradda kalluumaysiga jaamacadda runtii waxaan jecelahay badda laftigeeda way la shaqeeyaan marka aad baan ugu rajo weynahay inuu noqon doono mashruuc runtii wax weyn ka qabta baahida inuu qabno ilaalinta baddeena imka runtii waxay noqon doontaa meel aad iyo aad u muhiima maadaama xoolihii aynu haysanay imka inaga baxeen waxay noqon doontaa meel inteena badan runtii ay risiqeeda ay ka hesho alxamdulillaah hodanna waynu ku nahay bad dheer baynu leenahay ilaa 850 kilomitir intaynu xaq u leenahay xagga ganacsiga ilaa 100,000 kilomitir square waa laga yaabaa inay noqoto waana meel maraakiib fara badan ay marto caalamka $3 baa mara maxay raadayay xeebaheena mara sanadkii marka ilaalintooda iyo faa'iidaysigeedu runtii waa arrimo aad iyo aad u muhiim ah arrinkana waan nagala shaqeynaa waan soo dhaweynaa